markii aad doonaysid inaad noqotid qof guul ka gaadha iyo horumar nolosha waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iideysid 3 waxyaabood. ka faa'iideyso waqtigaaga, ku dayo qofka wanaagsan, kana dhabee go'aamadaada. ka faa'iideyso waqtigaaga oo waqtigaaga beerdaro yuusan kaaga lumin. markii aad doonaysid inaad guul ka gaadhid nolosha waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iideysid waqtigaaga, maxaa yeelay waqtigaaga wuxuu leeyahay ahmiyad gaar ah. sidoo kale inaad ku dayatid qofka wanaagsan, maxaa yeelay saaxiibka kuma madoobeeyo kumana cadeeyo sida uu yahay ayuu ka dhigaa. waxaad ogaataa oo qof wanaagsan aad saaxiib ka dhigtid markasta oo qof horumarkaaga iyo wanaagga jecel aad saaxiib ka dhigtid, markasta oo qof cilmi iyo caqli intaba ku dheer aad la saaxiibtid waxaad gaaraysaa horumar, waxaad faa'iideysaa wax noloshaada dhaxal u noqda. saddexaad waxay tahay ka dhabee go'aamadaada. mar haddii aadan maskaxdaada iyo fikirkaaga meesha aad u hanweyn tahay markasta caqabadaha kaa hor imaanayo haddaadan u dulqaadan karin haddaba ma gaari kartid guul. waxaa loo baahan yahay inaad ka dhabaysid go'aamadaada oo aad go'aamadaada wixii noloshaada xun, wixii aan ku wanaagsanayn, wixii waqtigaada dayici kara, wixii caqabad ku imaanaysa ku keeni kara. waxaa loo baahan yahay inaad go'aan ka qaadatid, inaad qaadatid go'aan aad wadada maanta aad saaran tahay wanaagsan inaadan ka leexanayn.